waxaa maalintii labaad xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Puntland ka socda dib u sixidda habraaca shaqada qaybo ka mid ah hay'adaha dowladda Puntland waxaana maanta ay ahaayeen wasaaradaha soo bandhigay qaab dhismoodkooda shaqo wasaaradaha kala ah deegaanka arrimaha gudaha howlaha guud wasaaradda waxbarashada dekedaha iyo waliba jaamacadda Puntland State University oo dhanka tababarada ka caawini doonta shaqaalaha Puntland isbarbardhigga qaab dhismeedkii hore ee wasaaradaha iyo kan hadda la doonayo ayaa la isbarbardhigay waxaana dhinacyadu ay soo jeediyeen aragtiyahooda structure cusba oo la soo jeediyay reformka lagu soo jeediyay horta structure aad u qurxoon weeye xitaa ay sheegay magacada iyo qaabka loo sameeyay iyo functionska aad buu noo wanaagsan yahay kaliya waxa u baahan meel yaryaraan isleenahay sheegay technical ahaan bay u baahan tahay oo in sheegay shaqada wasaaraddu ay qabato iyo waxaha kala duwan waxa muddaa meel yaryar kaliya in u baahan saxsaxo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada wasaarad marka dawladda kamida oo labada wasaaradood aan ka ahayn oo yeelan doonta marka laga reebo maxaa la yiraahdaa labada tan wasaaradood oo maxaa la hay'ad HR oo taagan yeelan doonta ma jirayso waa uniform dawladda ay wada qaadatay shaqaalihiin waa 86 kaba soo qaad 100 haday yihiin 200 haday yihiin 200 wax looma goynayo waxna ma noqonayso waa arin aan rabnay inaan cadeyno magaciisa Samatar Umar weeye waxaan ka socdaa wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka waaxyaha wasaaradda waa 6 waaxood weeye guud ahaan si fiican baa loo diyaarshay structure-ka oo mataqaana intii ugu muhiimsaneed waa la ka fargareeyay waxa ugu muhiimsan hal comment oo ah waaxda Department of Water Resources and Drainage-ka macna waaxda Water Resources and Drainage-ka waaxdaas waxa weeye waxa inta badan ka shaqeeya oo hadda ku howlan hay'adda Baasaweyn marka waxaan ku bedelanay waax kale oo iyadana muhiim noo ah oo wasaaradda aad uga shaqeyso waaxda quality control-ka agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Barni Ciise Axmed ayaa ka warbixisay hawsha ka socota xarunta wasaaradda meesha horta waxa ka socday dib u habeyn iyo dib u casriyeyn shaqooyinka wasaaradaha dowladda taas oo horay maxay u socotay loogu sameeyay 9 institution oo kamid ah hay'adaha dowladda hadeerna waxa ku jira 12 hay'adaha dawladda iyo jaamacadda BSU oo iyadana shaqaalaha dawladda iyo waxayna tababarto ugu jirto iyadana capacity-geeda iyo qaabkeeda la rabay wax laga ogaado arintan waxa weeye waa arintii reformkii guud oo dawladdu ay qaadatay 2014 markii maamulkan cusub yimid ilaa iyo ay ka dhamaadaan hay'adaha dawladda tan ugu dambaysa la marana way soconaysaa insha Allah tacaala halkan waxa ka socday maanta iyo shalayba maxay tahay arintaas consultations waxa laga sameeyay hay'adihii dawladda oo reformka ku socday functional review-gooda iyo dib u sixitaanka lagu waday shaqooyinkooda halkan la sugu yeeray si looga la tashado hore waxa looga ururiyay xog waxa la soo kireeyay nin baa loo soo shaqaaleeyay consultant oo heer caalami ah ninkaas wuxuu ka ururiyay xogta ay hayaan iyo organogramka ay ku shaqeeyaan shaqaalahooda iyo wax walba oo iyaga maxay tahay hadda ka jira kaantiga baa la weydiiyay kadibna muxuu haytay uu la noqday wuxuu maxay ku soo daray aragtidiisa isagoo u compare gareynaya sida dadka caalamka u shaqeeyaan iyo maxay aqoontiisa kaashanaya iyo sida aan inagu u shaqeyno intaba marka inta isu keenay maanta wuxuu keenay proposal wuxuu soo jeediyay structure cusub isagoo koodii tixraacaya marka kuwa kamida dad baa ka baxaya kuwa kamida dad hor lagu soo kordhinaya waana sababta reformku u yimid weeye محمد سعيد قصلاي بنتلان TV قروة